السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada daawadayaal, qisadani waa qiso aad iyo aad u cajaa'ib badan. waa qisadii caabidkii la oran jiray Bursiisa. kuma ayuu ahaa Bursiisa? meeqa sano ayuu Ilaahay caabudayay? wuxuu sameeyey Bursiisa? sidee ayuu shaydaanku u lumiyey Bursiisa? ugu dambayntiina xaguu ku dambeeyey Bursiisa? su'aalaha iyo kuwo kaleba waxaynu ugu jawaabi doonaa muuqaalka dhexdiisa. fiiro gaara, kanaalka magaciisii hore waydu bedelnay cabasho naga soo gaartay daawadayaasha awgeed. waxaynu u bixinnay Maxamed Cabdiraxmaan ee la socod wanaagsan. haddii aad ka heshay fiidiyowga fadlan like saar gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. asxaabtaadana u sheergareey, taasi waxay inoo tahay dhiirigelin aad nagu dhiirigelinayso in aynu sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah. Bursiisa wuxuu ahaa caabid ka mid ah cubaadii reer bani Israa'iil. Bursiisa wuxuu ahaa nin lagu tuhmo cibaado badan, waxaana la sheegaa siduu Bursiisa Ilaahay u caabuday inaysan jirin qof kale oo Ilaahay u caabuday xilligiisii. wuxuuna ahaa Bursiisa mid Ilaahay caabuday 70 sano, wuxuuna 70kii sano ku dhammaystay salaad, wardi iyo qiyaamuleyl, kamana bixi jirin buushkiisa, oo halkaas ayuu Ilaahay ku caabudi jiray. maalin maalmaha ka mid a shayaadiintii ayaa waxay u tashadeen Bursiisa si ay u lumiyaan, wayna kari waayeen. waxaana la sheegaa in Ibliis oo ah aabbaha shayaadiinta uu isku dayey inuu baadiyeeyo, wuxuuna Ibliis ku canaanan jiray shayaadiinta kale sababta aysan u baadiyeyn karin ninkani caabidka ah. dhammaan dadka xaafadda iyo magaaladuba waxay ka hadli jireen Bursiisa, iyagoo ku sheegaya wanaag, waracnimo iyo alla ka baq. wuxuuna buushka ka bixi jiray 10kii habeenba hal habeen, isagoo alle saacado badan caabudaya, saacado badanna taagan. maalin maalmaha ka mid a Ibliis wuxuu isugu yeeray dhammaan shayaadiintii oo dhan, wuxuuna ku yidhi, ninka Bursiisa la yidhaahdo waa nin aan la baadiyeyn karin. aniga Ibliis ahna dhowr jeer ayaan isku dayey inaan baadiyeeyo, balse waan kari waayey. waxaan u baahanahay shaydaan baadiyeeya Bursiisa oo lumiya, kana hor istaaga jidka Ilaahay. waxaa farta taagay shaydaan magaciisa la yidhaahdo shaydaanul abyad, oo micnaheedu tahay shaydaanka cad. waana shaydaan madax adag, shar badan, aqli ku dhammaaday, xaasid ah, arxanlaawo ah. waxaana loo diri jiray inuu baadiyeeyo nebiyada sida Nebi Ibraahim, Nebi Muuse iyo Nebi Ciise. tuulada uu Bursiisa ku nool yahay waxaa joogay 3 nin oo walaalo ah, waxaana la dhalatay gabadh walaashooda ah. waxayna dooneen 3dii nin in ay jihaad u baxaan oo Ilaahay dartiisa u jihaadaan. waxaana la sheegaa aabbahooda inuu ahaa boqor, balse intaysan jihaadka u bixin waxay u baqeen walaashoodii, waxayna ka tashteen arrinta walaashoodii. waxayna yidhaahdeen, yaa walaasheena ilaalinaya intaynu jihaadka ku maqannahay? hooyo iyo aabbo way dhinteen, waxaynu u geynaynaa nin ammaano badan oo walaasheena ilaaliya. ugu dambayntiina waxay isla garteen inay u geeyaan Bursiisa, waayo waxay yidhaahdeen waa nin diin iyo akhlaaq leh. mid ka mida ayaa wuxuu yidhi, Bursiisa kama baxo buushkiisa. mid kale ayaa wuxuu yidhi,
agtiisa ayaa qol yar ugu dhiseenaa si uu u ilaaliyo. Waxayna aadeen Bursiisa, waxayna u sheegeen arrintii. Markii koowaad wuu diiday oo wuxuu yidhi, anigu waxaan ahay caabid Ilaahay caabuda, waxaana ku mashquulsanahay salaad iyo wardi, mana ilaalin karo walaashiina. Waxay yidhaahdeen nimankii, keliya adiga cuntada u geey kana warqab, waxayna kugu tahay ammaano. Wayna ku adkeeyeen ilaa uu ka aqbalay. Wiilashii waxay sabootiyeen walaashoodii, waxayna gabadhii gashay qolkeedii, hoosna way ka soo xiratay. Bursiisana wuxuu sii sabootiyey 3 wiil, waxayna aadeen jihaad. Maalin kasta caabidkii Bursiisa la odhan jiray albaabka ayuu u garaacaa gabadha, wuxuuna u geeyaa cuntada, lamana hadlo, iyadana lama hadasho, wuxuuna ku laabtaa cibaadadiisa. Sidaa ayay arrintu ahayd muddo badan. Halkaa waxaa fursad ka helay shayddaankii caddaa oo wuxuu u yimid Bursiisa, wuxuuna ku yidhi, ma og tahay inay nooshahay ama ay dhimatay gabadha, mise og tahay inay caafimaad qabto ama ay xanuunsan tahay? Miyaadan mas-uul ka ahayn? Wuxuu yidhi Bursiisa, haa, mas-uul baan ka ahay. Wuxuu yidhi shayddaankii, gabadha salaan oo keliya, taasina waxba kaama dhibayso, waxaadna ogaanaysaa inay caafimaad qabto iyo in kale. Markii koowaad muusan yeelin Bursiisa, balse muddo kadib ayuu yeelay. Markuu cuntada u geeyo ayuu salaami jiray, iyadana way ka qaadi jirtay. Wuxuuna shayddaankii caddaa ku guulaystay tallaabadiisii koowaad ee abid. Waqti kadib shayddaankii wuxuu ku yidhi Bursiisa, waxaa laga yaabaa gabadha inay xishoonayso, walaalaheediina way ka soo daaheen, waxaana laga yaabaa inay wax u baahan tahay. Adiga weydii oo keliya, wax dhiba ma lehee. Sidii ayuu sameeyey Bursiisa. Cuntadii ayuu u geeyey, wuuna salaamay, kadibna wuxuu ku yidhi, ma wax baad u baahan tahay? Haddii ay haa tiraahdo, wuu keeni jiray, haddii ay maya tiraahdana wuu iska dhaqaaqi jiray. Wax saa u sii weyn ilaa iyo hadda ma dhicin, laakiin shayddaankii caddaa wuxuu doonayey inuu xaqiijiyo hadafkiisii ahaa inuu lumiyo Bursiisa. Maalin kale ayuu u yimid, wuxuuna ku yidhi, gabadha qolka u gal, oo haddii aad bannaanka kala hadasho, dadka ayaa ku arkaya. Sidii ayuu sameeyey Bursiisa, oo iimaankiisii ayaa daciifay. Wuxuu bilaabay Bursiisa inuu taataabto gabadhii, wuxuuna ku badiyey hadalkii. Ugu dambayntiina waxaa dhacay inuu shayddaankii uu rabay Bursiisa, caabidkii weynaa, wuxuu ka sinaystay gabadhii. Bursiisa wuxuu ku laabtay buushkiisii, wuxuuna bilaabay ooyin iyo shallaytan, wuxuuna ka qoomameeyey ficilkii xumaa uu sameeyey. Markii bilooyin laga soo wareegay, ayaa gabadhii waxay ku tiri Bursiisa, uur baan leeyahay. Wax yar kadibna way dhashay. Bursiisa wuxuu waayey wax uu ku sameeyo ilmihii yaraa, wuuna wareeray. Wuxuuna ku yidhi shayddaankii, ilmahan hooyadii ka qaad oo dil, kadibna saxaraha ku aas si aan lagu ogaanin. Markaan Bursiisa xoog ma lahan, wuxuuna dilay ilmihii, wuxuuna ku aasay saxaraha. Markuu dilay ilmihii yaraa, mar kale ayuu u yimid shayddaankii caddaa, wuxuuna ku yidhi, ma waxaad u malaynaysaa inaad badbaadday? Haddii ay walaalaheeda soo noqdaan,
wixii aad ku samaysay ayay u sheegaysaa gabadhani, waxaan kugu tali lahaa inaad disho. haddii ay ku weydiiyaanna waxaad tidhaahdaa qadar Ilaahay ayay u dhimatay. sidii ayuu sameeyey oo inuu qolka u soo galay ayuu dilay, wuxuuna ku aasay meeshii uu ku aasay ilmihii yaraa. muddo kadib waxaa yimid 3 nin, waxayna raadiyeen walaashoodii wayna waayeen. waxay u yimaadeen Bursiisa iyagoo weydiinaya walaashoodii. wuxuu ku yidhaahday Bursiisa way dhimatay, oo waxay u dhimatay amar Ilaahay. nimankii waxay aadeen guryahoodii iyagoo murugaysan. habeenkii markay seexdeen, shaydaankii caddaa ayaa mid kasta riyo ugu yimid, wuxuuna ku yidhi, walaashiina waxaa ka sinaystay Bursiisa. kadibna waxay dhashay ilmo, iyadii iyo ilmihiina wuu dilay, wuxuuna ku aasay saxaraha. subaxii markay soo kaceen, kii yaraa ayaa wuxuu labadii kale u sheegay riyadii uu arkay xalay. labadii kalena waxay ku dhaarteen inay arkeen isla riyadaa. waxayna aadeen saxarihii iyagoo baaraya qabrigii walaashoodii. ugu dambayntiina way heleen iyadoo la dilay, waxaana ku ag aasnaa ilmo yar oo u eg. waxay u soo degdegeen xaggaas iyo Bursiisa, waxayna ka jibiyeen buushkiisii. dadka xaafaddana way isku soo baxeen. waxay bilaabeen dadkii inay dilaan, caayaan iyo inay ahaaneeyaan Bursiisa. ugu dambayntiina waxay go'aansadeen wiilashii inay daldalaan, waayo naf buu dilay. waxaa la keenay meeshii lagu daldali lahaa Bursiisa. iyadoo wax yar kadib la daldali rabo, waxaa istusay shaydaankii caddaa, wuxuuna ku yidhi, waxaa la yidhaahdaa shayddaanka cad, anaana u sababa wixii kugu dhacay oo dhan. waxaana awoodaa hadda inaan ku badbaadiyo. wuxuu yidhi Bursiisa, haa i badbaadi. wuxuu ku yidhi shayddaankii, hal mar ii sujuudo. Bursiisa wuu ka diiday markii hore, balse shayddaankii ayaa hadalkii ku sii waday. ugu dambayntiina wuu u sujuuday. markuu sujuudayna, dadkii ayaa isla markii dilay. shayddaankiina wuu ka cararay kadib markuu adduun iyo aakhiro seejiyey. wuxuuna Ilaahay qisadaasi ku tilmaamay suuratul Xashr aayadda 16 ilaa aayadda 17. Allahu a'lam. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين.